inaan wax tarbiyeyno ma rabno inaan hogaamino carruurta oo hogaansanaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جانل كينا كوبعينتا قراتك عرورتا ولاشين رحمة حسين وانا دي سلامي ولا لهان aan hawada isku baranay soo dhawaada hadaan channelka ku cusub tahay like deh share subscribe deh saan ugu soo biirtid casharada ka socda channelkan in ku dhaafin maanta maxaan rabnaa inaan ka hadalno caruurta madaxaada adag yahay oo dhan bismillaah madaxooda ma birba marka kuwaas baan rabnaa inaan ka hadalno wax yar insha Allah horta waalidkii haysto cunuga madax adag bishaaro ma sha Allah waayo waxaa haysataa inaa ku faraxdo haysta cunuga aan leh oo number 2 cunuga madax adag bise ula dhaqmayna number 2 waxaa sameynaysaa inta horta cunugaas oo waa saxa adihin adi isfiiri adi isku soo noqo dheh hadda wax masixi karaa hadda xanaaqeyga intuu maraya hadda dhiigeyga ma boqolkiiba ka sii darmo maraya mase waa xogaa degan marka number 2 waa kan koowaad haaba ku dhaqaaqinba adoo deganaan marka hore soo deji marka aad soo degtid maxaa ku xiga marka waxaa ku xiga sacunuga oo ula dhaqmi laan sooma waxaa fiirinaynaa horta waxaa tusaysaa marka hore waxaa tusaysaa dhibaatada oo cunugtaan ama cunugan sameynayo ama eedadarada uu ku dhawaaqayo ma shaqeynayso waa qeyli karaa dhulka isku garaaci karaa wax walba uu sameyn karaa laakiin ma shaqeynayso waa adkeysanay seeba u adkeysanayna marka taa iska haysanaato ma qeylinayna maya ma bahashi ma la soo baxayna nabdab ma ka siinay laba xamba maya la soo dejina hadda diyaar waxa u nahnay maskaxdi ina ilaalino oo cunugina tarbiyeyno soo marka cunugi waxaad u deynaysaa saarabtid oo u dhaqmi kartaa laakiin ma shaqeynayso taas waa oo si ama si kala u dhaqantay iyo taas go'aankeyga bedelayso meesha taagnaanaysa la wax isku dirta wax kas wixii xanaaqa keenay meesha taagnaanaysa taas waxay nagu caawinaysaa inay ogaadaan mala bedelo kal ruuxan sooma laakiin maanta hadii nala bedelo beri nala bedelo madax adag uu sii badana laakiin ilmaha madax adag waa ma sha Allah aad iyo aad u aqal badiyeen ana ka rabaan inay marba dhinac noo rogtaan ana kada oo kasi foojignaana waan ka reynana insha Allah ana koona ilaalina maskaxda number 2 dhibaatadan oo madax adeegan oo soo socdo horta inteena dhicin ka horta maxaa horta karna ka soo qaad badana caruurta ana age-ka hadda aan ka hadlayo wuxuu u dhaxeeyaa caruurta yaryarka ah ilaa 13 jir wixii ka yar oo teenager-ka ma ka hadlayo kuwaas yararka ka hadlaya marka waxaa sameynayna kuwan marka hore laba choice siinayna kana waa kaas labadaas choice waa laba adiga caadi kula oo dib ku geysanan oo mid ajacasha mid xanaaq ma ah waa loo iskaalmid ka soo qaad labadan baaqule ma kana ku cunaa masakan waa iskaalmid marka labadaas choice siinaysa ama
waxaa ogaanaysaa marka u horeyso goormoo cunuga xanaaqa goormoo dhibaatada bilaabo marka ina canjalada ugu soo hadla ha qaylanina carruurta dabeecadooda baro kaas ku laabo insha Allah markaasaa fiiri dabeecadda marka hore waa baranaynaa okay goormoo cunuga horta iswaala goormoo madax adeeg bilaaba number 2 waa taas number 3 hadalkaada dahab ka dhig hadalladeena waalid haddaan nahnay ama macallin aan nahnay haddii hadalkeeno dahab noqonin oo isqilqilaaf oo keeno waa naga faa'iideysanaya marka hadalkaada haba dhihin cunuga haddaadna ku dhaqaaqeen marka wax ha ku dhaaran ama wax kale ha sameyn haddaadna sameynayn haddaad sameynaysa laakiin dheh taasna wayna ogaadaan saas hooyaa dhahda aabbaa dhaha waa ku dhaqaaqa tan kale waxaa sameynaynaa su-aalaa weyd marka arrinta degto oo dhiiggii boqol iyo wax lasii maraya degaan aa su-aal loo fariisanaa maanta waxaasaa dhacay ama shalay waxaasaa dhacay sababta ma ii sharaxi kartaa oo saas u samaysay adaha iloobin inta dhibaato dhacdo oo laisku qayliyo ama war laga diido hortaaha usii socno waxaasoo lasoo dhaafaa dhiig ku laabo maxay u dhac waayo anaka waxaa rabnaa inaan wax tarbiyeyno ma rabno inaan hogaamino carruurta oo hogaansanaado uun ruux wala ruuxii uun ka hor imaado iska hogaansanaado taasaa ma rabno waxaa rabnaa ilmo fikiraayo maskaxdooda degan tahay guri degan waalid degan saas u dhaca tarbiya saas nooga socoto ha iloobin waa weydiinaysaa shalay saas baa dhacday maxaa dhacay saas maxay ku dhacday sababta saa u sameeyay ii sharxi kartaa okay maxaa kuu soo haray marka saas u weydiiso ku sharaxaan ama ku sharaxin laakiin markastaba joogtee insha Allah hadii marka hore lagu sharaxin marba lagu sharaxi doonaa mar aad lagu dhihi doonaa sababtaas aad darada u sameynaa waa gaareena ha degdegina ku dhaqaaqa la adi hal meel meeshan ku socole maxaa dhacay su-aashaada ha socoto haye ma hadda waa qabowde dagaalku waa degan maxaa u samaysay saas gurigeena lagama ogolo saana lagu ogol yahay sidaan ma jirto saasa u sharaxaysaa tan kale carruurta oon dhahna madax adag ma jecli inaan dhaha carruurta madax adag laakiin saa u fahano videogan dartiis aan dhahaynaa carruurtaas oo maasha Allah waxaan raadinaynaa badanaa si u badiyihiin waxay qaladka u galaan ama daro u sameeyaan inayna soo jeediyaan oo waxay dareemayaan hooyo aaba iska jeedaan ku kala u jeedaan xaggeed ani ma i arkayaan bacama daro markaas sameeyo waa la soo jeedo sooma saas darteed waxaa raadinaynaa waxyaabaha wanaag markay sameynaa ilaa wax yaris wax yar cunugaas soo sameynaya haddaa aragtid waxaa leedahay maasha Allah saasaa samaysay khayr Allah ku siiyo jazaaka Allahu khayr ma ogtihi heblaaya saasay samaysay maanta hebel saasoo sameey intii yareed waxaa ka dhigaysaa wax weyn magaca oo ugu qurux badan ee jecel yihiin adoo ku dhahayso taas marka waxay nagu caawinaysaa in ay dhiirigelin u noqoto oo ayna ogaadaan wanaagga markaa qabto waalidku way la socdaa laakiin haddii markii qaladka la anaka aan soo jeesano wanaag markii la sameyna aanba la soconin waxay dareemayaan markaas maba liila socde hadda marka ay daro sameey bal soo jeedi marka insha Allah intaas soo sameeyo wixii fikrad ah
wax waa iisoo sheega waayo waxaan rabnaa le caruurteena inaan maskaxdooda ilaalino oo ubad wanaagsan oo maskaxdooda ilaashan tahay inaan korino ma doonayno caruurteena markay weynaadaan le oo arkino marka naga hor imaadaan markaas le inaan indhaha kala qaadno ma rabno waxaan rabnaa caruurteena intay yaryar yihiin inaan ku bilaawno markay weynaadaan ما شاء الله عرتا دونينا نو نقدان إن شاء الله إلهي نو هاجي عرتو إن شاء الله وح الوحي فكرة كصدرة وحق التربية ده نقصد إن شاء الله هوس كساقرة سبسكرايب كريا لايك شير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.